shacabka magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka dareen celiyeen wado afar haad oo laga dhisayo gudaha magaalada Hargeysa taasi oo halbowlo wahayd marinka iyo isu socodka magaaladaasi iyo waliba dadka shacabka in ay si raaxo leh wadooyinkaasi shacab ahaan iyo iyagoo gaaridooda wataba ay u maraan sheekadaasi waxa Hargeysa ka soo diray la xiriirta arintaasi Xamse Dabare ومد كميد wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa halbowla oo ah dhawaanayay sheegtay xukuumadda Soomaaliland in ay ka dhigayso afraad shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa weydiiyay sida ay u arkaan baldareenkooda in laga dhigi karo afraad iyo in laga dhigi karin waxaana telefishinka RTN TV u sheegeen in ay soo dhaweynayaan ayna ka qayb qaadan doonto bilicda magaalada Hargeysa laakiin shacabka qaar ayaa sheegay in aanaysan macquul ahayn in wadadan laga dhigo afraad iyagoo sabab uga dhigay in markeedii horeba ay ahayd laba haad balse aan aqliga bini'aadanka geli karin in laga dhigo afraad waxaana yiraahdeen laakiin wadadan afartaad waxaynu u baahanay in laga soo bilowdo halka maxaan ku raday buurta kala jeexan marka laga soo bilaabo in halka laga saaro wadada berbera waxana loo baahan yahay inaan cidna lagu xaq dhawrine maca inta dhexda la qaado khadad yar oo cadcad oo calaamada muujinaya loo dhaxdhaxaysiiyo wadada in halka laga saaro wadankana way qurux badan tahay magaaladana way qurux badan tahay wadada kale iyaduna jeelka hormarta ama dhakhtarka weyn dabadiisa martana sidaas laga dhigo horumarka dhulka hadaan laga wada shaqeyn shacab iyo dawlad de wax suurta galaya haba yaraatee ma jirto waxaynu doonaynaa inaynu ka wada shaqeyno bilicda magaalada Hargeysa hadii anigu interlogan soo dhigtay ilaa halkee oo niraahdo cid allaaliya cidii halka u soo dhawaatana halayga horkaxeeyo oo isla dawladii cashuurtaanayga qaadisay adiguna cashuurta ka qaadisay adii adeegsato ninka taajirka oo yaa ku siiyo sharciga ilaa halka ku siiyo waa maxay mid kale su'aal ka qaba waxa la yiri wadada madaxtooyada horteeda si ay dadku ugu quus qaataan kaabadaha yaala ayaa la soo qaadaya anigu waxaan leeyahay kaabadaha lama qaadi karo laakiin dib baa loo dhigi karaa kadhiga afraad horta way fiicantay oo de waxa la oran karaa caasimadaha caalamka oo dhan waa halbowlayna in magaaladu yeelato wada weyn bartamaha magaalada marto afraad laakiin waxa ka sii horeeya suurtagal ma tahay waxaan ognay maanta wadada weyn ee dhex madaxtooyada hormarta xitaa labadan haada imka ay tahay ayaaba cidhiidhi ku tahay space la oran karo maanta afar haad baa laga dhigaya oo macquul ah ma jiro dhinac walba sakadii baa kaga soo dhawaaday labada waxaan oran lahaa oo macquul ku dhawaan lahayd in iyada kor loo yar qaado oo loo sameeyo markay biyaha kala dhinacaya ay ka maraan taas baa ugu dhowdhow laakiin maanta lama oran karo afar haad ayay noqonaysaa sababtoo ah meel laga dhigo sakadihii oo dhan sakadahana waxa maanta dawladdu waxaan manayaa dhaqaale awood oo maanta ay sakadaha inta ku baabiiso ay dadkii lahaa ugu celiso dadna wada kaga dhigtana ilaa heerkeena ay gaarsiisanta malayn ma inay iyana jirto lacagta haday dawladdu haysto oo meesha tali wadaduna maanta inay afar haad aynu nidhaa maanta toonkii magaalada Hargeysa waxaad ka soo qaaday ilaa Muuse Jaamac ilaa iyo saldhigga dhexe inta u dhaxaysa labada haad guryaha labada wajahadood haysta waad aragtay guryaha sooniga fikradaydu waxay tahay guryaha soo la guriga imka bartii khayriyadaa ugu dambeeyay waad aragtaano spacekii iyadoo wadada la qaaday mooyaane inaanay noqonayn baa laga yaabaa afartaa haad hadday u badato laba haadoo waafiya oo guryaha lagu nabo ayay noqon lahayd ma aragtida shakhsi ahaaneed selfiga marka la leeyahay halkan afar haad laga dhigaya waxay la tahay in la leeyahay baabacada timaa ka soo baxaan waayo caqabado badan oo hortaagan baa jira caqabadaha waxa kamid ah kow imka waad aragtaa wadadan waxa noqotay maska haday leexleexatana ma fidi karto laakiin markay straight line ay tahay ama ay toosan tahay way ballaaran kartaa laakiin marka laga dhismaasho sidii ku yihiin macquul ma habaan leeyahay mid kamid ah darawaliinta kala duwan ee isaga kala goosho magaalada Hargeysa ayaan weydiiyay bal sidoo uu arko in wadadan laga dhigo afraad waxna uu yiri waxa wadada arkaan si fiican ay u socoto hawli waana ku maadsin maayirka iyo maayirka xigeenka caasimadda iyo gudoomiyaha gobolka laakiin anu waxa soo jeedin lahaa talahaan in marka hore wadada surfinkeeda caadi loo baneeyo oo guryaha ku jira wadada
maxaa toolay diirarka wadada haysta laga qaado wadadana laga soo bilaabo kantaroolka magaalada laga soo galayo galbeed kantaroolka barina lagu gaarsiiyo adiba darawalada kala duwan ee wadadan adeegsada waxay sheegeen inay tahay wadada kaliya magaalada Hargeysa jaamka kala fududeysa laakiin dadka u daraseeya amaba ka baxay cilmiga injineernimada waxay sheegeen haddii lagu guuleysto wadadan in laga dhigo afar had inay mustaqbalka noqon doonto wadada kaliya kala fududeysa jaamka magaalada Hargeysa iyagoona tusaale ahaan u soo qaatay waqtiyada kala duwan ee roobku ka da'o magaalada Hargeysa xamsada baare hargalka RTN TV Hargeysa